بسم الله قضب كانت شنو وحو كهadlayaa si fast to understand than to be understood isku day marka hore adiga inaad fahanto qofka kale intaad dhilid adigu isku day aniguna fahanto intaad dhilid dadku way kala aragtidu yihiin bini'aadankana sidaan hore u soo sheegnay waa qof bulshaawi ah waa qof bulsho ku xindaaban la tacaamulaya bulshadaas kala duwan doonaya inuu xiriir wanaagsan la sameeyo si loo gaaro maxay manfaco iyo dan wadajir si loo gaaro haddaba manfacada noocaas loo gaaro dadku way kala aragtidu yihiin way kala fikir duwan yihiin haddaba waxaana sababay dadku isku meel aan ku soo karin waxaa sababay dadku aqoontooda ay kala duwan tahay waxaa sababay dadku oo ay kala duwan tahay dhaqankooda arrimaha noocaana waxay keenayaan in la kala aragti duwanaado ayay keenaysaa arrimaha noocaana haddaba in la kala aragti duwanaado maxaa xal u ah qofka ama bini'aadanku intooda badan markii ay imaato isku dhac ama khilaaf dhanka aragtida markay timaado qofka kale wuxuu isku dayaa fikirkiisa inuu ka dhaadhiciyo iskuma dayo inuu fahmo qof kale fikirkiisa inuu fahmo qof walba iskuma dayo wuxuu isku dayaa inuu dhegeysto si uu u jawaabo maaha si uu fahmo maaha wuxuu u dhegeysanaya si uu jawaab u diyaarsado si jawaab uu siiyo maaha si uu u fahmo kadibna jawaab uu siiyo maaha haddaba xalku waa maxay xalku waxaa weeye inaad isku daydo qofka kale inaad fahanto aragtidiisa inaad isku daydo inaad fahanto waa la kala aragti duwanaan karaa laakiin isku dayo qof kale inaad aragtidiisa fahanto inaad qofka kale aragtidiisa fahmo maxaan ka faa'iidayaa laba shay number one waxaan ka faa'iidaya waxa loo yaqaana correction qalad haddii aan ku jiray oo isaga uga saxnaa haddii aan dhegeysto si fiican cadaalad aan dhegeysto dan waan ku qancaya aragtidiisa oo maxaa ii suuragal inaan waqti iyo juhdi iyo wax ku bixin lahaa aragtideedu khaldaneed inaan qof kale ka dhadhiciyo maxaan fahmayaa maxay aragtidiisa inay iga saxneed baa fahmaya dan aragtidiisa ku qancaya number one number two waxaan fahmayaa ama faa'iidada labaad uu leeyahay waa maxay convince inaan qancin karo markii qofkan aragtidiisa aan dhegeysto fikradiisa aan dhegeysto oo aan caadi u dhegeysto fahmo wuxuu ka hadlayo wiilina khilaaf uu jiro qof kale wuxuu fahmayaa in maxaa la yidhaahdaa khilaafku uusan ahayn aragtidiisa ee arrinkan inay jirto ay fahmayaan waxaana muhiima qof kale inaad u sheegto ku tiraahdo waan ku fahmay oo aragtidada aa ka hadlayso waan ku fahmay inaad tiraahdo then markaad tiraahdo waan ku fahmay laakiin arrinta noocaan jira waan ku fahmay aragtidaada tusaale ahaan inaad tiraahdo mooska iyo cambaha mooska ayaa fiican sababto ay tahay fiiqistiisa ayaa ka fudud iyas aragtida nooca waa kuu fahmay laakiin cambaha wixii aa ka hadlayso kadib inaad ka hadasho wuxuu fahmayaa waxaad ku haysato ama khilaafka idinka dhexeey inuusan ahayn khilaaf ku salaysan wuxuu ka hadlay ay tahay wax kaloo ka duwan inay jiraan tan maxay keenaysaa isfaham guud in la gaaro ayay suuro gelinaysaa waaya waa muhiim in aad qofka kale fahanto aragtidiisa si fikradaada uga dhadhayso muhiim jiddan fikrad baa rabtaa qof inaa u sheegto sooma first you have to understand his idea aragtidiisa fikradiisa fahan markaa fahanto then wixii uu ka hadlayo haddii waxaagay ka duwan yihiin then iyo inaad ku qanciso markaas way ku suura gelaysaa fikir walba rabta inaad ku qanciso waxaa inaad fahantaa qofka kale maxay tahay waxa kan wax ku keenayo maxay tahay wax ku qasbaya ama ku riixay ficilkan inuu sameeyo maxay tahay ayay ku suura gelinaysaa qodobkan isla halka ayuu ku egyahay insha Allah taala qodobkan lixaad ayaana gudagelinaa